askar ka tirsan ciidanka ilaalada madaxtooyada dalka Jamhuuriyadda Somaliland oo muddo tababar dhinaca borotokoolka iyo hab maamuuska uga socday wadanka Djibouti ayaa lagu soo gabagabeeyay xero ku taala magaalada Cali Sabiix ee wadanka Djibouti waxaana askartani ka socotay wadanka Somaliland tababarka u fudinayay ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalka Djibouti uu hogaaminayo taliyaha guud ee ilaalada jamhuuriga Korneyl Maxamed Jaamac Ducaale intii lagu guda jiray xiritaanka tababarkaasi askarta ka socotay wadanka Somaliland ayaa waxa salaan ka qaatay cutubyo ciidamada oo kala duwan oo xeradaasi ku sugnaa labada taliye ee ilaalada madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland iyo Jamhuuriyadda Djibouti sidoo kale iyaguna waxa goobtan ku sugnaa safiirka Somaliland u fadhiya wadanka Djibouti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed agaasimaha guud ee madaxtooyada Somaliland iyo taliye xigeenka ciidanka madaxtooyada Somaliland waxaana shahaadooyin ka turjumaya tababarkaasi casriga ah ay qaateen askarigii kaalinta koobaad tababarkaasi ka soo galay shahaadadii ugu horeysay guddoonsiiyay taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyada Jamhuuriyadda Djibouti Korneyl Maxamed Jaamac Ducaale sidoo kale safiirka Somaliland iyo taliyaha guud ee ciidanka ilaalada madaxtooyada ayaa iyaguna askartii kale shahaadooyinkaasi guddoonsiiyay markii la soo gabagabeeyay munaasabadaasi tababarka loogu soo xidhayay askartaasi ka socotay ciidanka ilaalada madaxtooyada Somaliland ayaa waxay askarta ka socotay wadanka Somaliland halkaasi ku soo bandhigeen riwaayad ka turjumaysa tababarkii iyo waxyaalihii ay soo qaateen idinkoo ardayda Somaliland oo ah ciidanka ilaalada madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland waxaan maanta baranaynaa amba la idin keenay meeshan stage diyaarinaysan maanta waxaan dhiganaynaa waxaad u taqaanaan digtoonow naso halkan waxa lagu yiraahdaa gardafo qobbo gadfo قوم حي قوم بالقوة السلالية كلا تجا ها وكلا الله قبر هذا تيجينا ولا راعينا أنا ويسوتجي أنا قبود يا الله قبر تويسوتجي وسمينو بيتجي اليوم مرك قاد وقشون بيقدر أنت هاي مرك الله يراهض باستولا ما أنتقاد شاشير مانجوش أبغني مرك هسه يقدر يديك باي وحوي مرك أي دور كتهاي والله كعيا هم باق بالغادنا يا بورت بورها وقدر waxaan baagano wax kala u naqaanaa waxa weeye kiishad weyn oo dhabarka la saarayo shakaado waxa ay dhan baa lagu dhameynaya bur caaree la yiraahdo ayaa laga baxaya Maxamed Jaamac Waale warbaahinta qaranka Somaliland Djibouti